kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka kulanka wararka waa 6 bisha 8 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah Haweyn ismiidaamiyaal oo soo galay Muqdisho iyo xarumaha ay doonayaan inay qarxiyaan oo la ogaaday magacyada mas'uuliyiinta loolanka adag ugu jira xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweyne Farmaajo iyo Kheyre isku haysta shakhsiga la magacaabayo dawladda oo soo saartay qorshe cusub oo qaraxyada lagaga ilaalinayo magaalada Muqdisho ciidamaha beeleed u abaabulan oo la wareegay gacan ku haynta magaalada Hobyo iyo xildhibaano ku xaniban magaaladaasi Axmed Madoobe oo aqbalay go'aanada taliska Amisom kana laabtay mowqifkiisii hore iyo ciidamada dawladda federaalka oo garab ka helaya Mareykanka oo shabaabka la wareegay degmo muhiima intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan aynu ku bilownay Haweyn ismiidaamiyaal ayaa soo galay magaalada Muqdisho iyadoo dhanka kalena la ogaaday bartilmaameedka haweenkaasi xog sirdoon oo heshay warbaahinta madax bannaan ayaa sheegaya in magaalada Muqdisho ay soo galeen laba haween kuwaas oo la sheegay inay doonayaan fulinta qaraxyo ismiidaamin ah sargaal ka tirsanaysa ayaana la wadaagay in labadan haweenka markii horeba ay ahaayeen reer Muqdisho balse bilihii ugu dambeeyay lagu soo diyaarinayay gobolka Jubbada Dhexe lama oga meesha ay ku wajahan yihiin iyo sidoo kale qorshahooda isqarxinta balse waxa la og yahay in magaalada ay ku jiraan oo kaliya hay'adaha amniga ayaa si hoose u faray xafiisyada dawladda inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah si aanay dib u dhicin dhinaca kalena magacyada mas'uuliyiinta loolanka ugu jira xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir oo la ogaaday iyadoo sidoo kalena madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Kheyre ay isku heesaan shakhsiga la magacaabayo xafiiska madaxtooyada Soomaaliya ayaa la sheegay in saacadihii la soo dhaafay ay buuxdaafiyeen qaar kamid ah beelaha dega magaalada Muqdisho iyo siyaasiyiin doonaya in la magacaabo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ilaa 7 qof oo siyaasiyiin ah isla markaana hadda ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qaarkood laga qabtay siifiyo waxayna la kulmeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ay kala hadleen arintan warbaahinta ayaa heshay magacyada qaar kamid ah xubnaha doonaya inay noqdaan gudoomiyaha gobolka Banaadir kuwaas oo qaarkood rajo wanaagsan ka qaba xilkan dadka ay warbaahinta ogaaday ee doonaya in loo magacaabo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kala yihiin Yuusuf Gare Yusuf Jaale agaasimiye hay'adda dawladda iyo saadaasha hawada oo shaqadiisa ku waayay shaqo joojin uu ku sameeyay wasiir Omar balse ninkan waxay saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo Yusuf Jaale ayaa wajahaya oo kaliya diidmada Kheyre oo ay weligoodba heshiis noqon Axmed Washington oo ah maareeyaha dekedda Muqdisho ayaa sidoo kale kamid ah xubnaha xilkan raadinaya isla markaana rajo wanaagsan ka qaba in loo magacaabo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa Muqdisho Washington waxay saaxiibo dhow yihiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sidoo kalena iskuma xuma madaxweynaha dalka waxayna is yaqaanaan muddo ku dhow 40 sano ka badan waana shakhsiga ugu rajada wanaagsan Ali Gacal waa agaasimaha wasaaradda gaadiidka Soomaaliya waxa uu ka tirsan yahay shakhsiyaadka rajada ka qaba in loo magacaabo booska gudoomiye Yariisow Ali Gacal waxa in xilkan loo magacaabo dalbaday beesha uu ka dhintay injineer Yariisow sida ay noo sheegeen xubno ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya Umar Qaanso waa gudoomiyihii hore degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxa la sheegay ninkan sidoo kale ay dalbadeen in xilkan loo magacaabo beesha uu ka soo jeedo gudoomiye Yariisow Umar Dhagay oo ahaan jiray gudoomiyihii guddiga doorashada waxa uu kamid yahay shakhsiyaadka aadka u dadaalaya isla markaana hami ka qaba xilkan beesha uu ka soo jeedo Umar Dhagay waxay ka cabanayaan in weerarkii xarunta gobolka ay ku waayeen dadkii ugu badnaa in doonayaan in gobolka ay wax ka qabtaan Salaad Cali oo ah la taliye sare oo ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya sidoo kalena soo noqday wasiir ku xigeenka gaashaandhigga Soomaaliya Salaad waxa uu ka tirsan yahay shakhsiyaadka raadiyay xilkan Cabdi Jiino waa gudoomiyihii hore gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya waana saaxiibka ugu dhow madaxweynaha Soomaaliya waxaana la sheegay inuu ka tirsan yahay shakhsiyaadka xilkan raadiyay Salaad Cali Jeele iyo Cabdi Jiino rajo weyn kama qabaan xilkan sababtoo ah saami qaybsiga beelaha ayaa waxa ku imaanaya qalad weyn leeyihiin kursiga wasiirka amniga Soomaaliya oo aan suurtagal ahayn in xilkan loo magacaabo madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhinaca kala qaabilay qaar kamid ah beelaha dega gobolka Banaadir waxaana la sheegayaa in qaarkood ay kala hadlay qorshihiisa ku aadan magacaabisa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho
geesta kalena dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo saartay qorshe cusub oo qaraxyada lagaga ilaalinayo magaalada Muqdisho. laamaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa amar ku bixiyay si loo sugo amniga magaalada Muqdisho inaysan gudaha magaalada soo gelin gaadiidka xamuulka iyo dadweynaha sida ee ka yimaada gobolada dalka. taliyayaasha ciidamada baraha koontaroolada laga soo gala magaalada ee labada dhinac maslax iyo siinka dheer ayaa lagu amray inaysan soo deyn karin gaadiidka soo galaya magaalada marka laga reebo gaadiidka BL-ka loo yaqaan ee dadweynaha qaada kuwaas oo isaga kala goosha Muqdisho iyo deegaanada kale ee ku xiran. sidoo kale gaadiidka dadweynaha ee magaalada soo galaya ayaa la amray ciidamada inay si adag u baaraan isla markaana hubiyaan marka laga soo tago dadweynaha agabyada kale ay sidaan. inkastoo adkeen baaritaanka ciidamada gaadiidka soo galaya haddana waxaa jira gaadiid kale oo damiin lagu soo geliyo magaalada Muqdisho. labada gobol ee shabeellooyinka ayaa waxaa inta badan ka yimaada gaadiidka sida qudaarta noocyadooda kala duwan iyo dhuxusha kuwaas oo iyagoo la baarin iska soo gala magaalada isla markaana al-shabaab si fudud ugu soo qarin karaan walxaha qarxa. dowladda federaalka ayaa maara u la sugidda amniga magaalada Muqdisho iyadoo u xiran yihiin inta badan wadooyinka magaalada haddana weli qaraxyada iyo dilalka qorsheysan waa ay dhacaan. ciidamaha beeleed oo abaabulan ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalada Hobyo halkaasi oo uu ka socdo shirka wajiga labaad ee beelaha habargidir. qaar ka tirsan ciidamada 12aad ee xoogga dalka ayaa isaga baxay magaalada Hobyo ee gobolka Mudug oo uu ka socdo shirka beelaha habargidir. ciidamadan 12 oo markii hore sugayay ammaanka magaalada ayaa isaga baxay kadib markii la sheegay inuu amar kaga yimid ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre. ciidamadan isaga baxay magaalada Hobyo ayaa la sheegay inay wateen ilaa 3 gaari oo kuwa dagaalka waxaana maalmihii dambe ay sugayeen amniga magaalada Hobyo oo ay ku sugan yihiin ergooyinka kala socda beelaha habargidir iyo xildhibaano labada aqal. markii ay ciidamadaasi ka baxeen magaalada Hobyo ayaa waxaa durba la wareegay ciidamo u abaabulan habbeeleed. ciidamadan la wareegay ayaa la sheegay inay ka soo jeedaan beelaha Sacad iyo Saleebaan waxaana magaalada soo gashay ilaa 13 gaari oo kuwa dagaalka iyo ciidamo aad u hubeysan. dowladda Soomaaliya ayaa shirka Hobyo u aragta inuu yahay mid caqabad ku ah danaha ay ka leeyihiin maamulkaasi waxaana ciidamada 12aad cadaadis lagu saaray inay isaga baxaan magaaladaasi. shirka beelaha habargidir uga socda magaalada Hobyo ayaa shalay galay wajigiisa labaad waxaana shirka ku biiray xildhibaano ka tirsan labada aqal. qaar ka tirsan xildhibaanada shirkaasi ka qayb galaya ayaa hore u sheegay inuusan shirka diidaneen midka dhuusamareeb ka dhici doono balse ay sii diyaarsanayeen qodobadii ay shirkaasi la tagi lahaayeen. ra'iisul wasaare Kheyre ayaa muddo 45 cisho ah ku bixiyay deegaanada maamulka Galmudug waxaana uu sheegay in dowladda ay ka go'an tahay sidii ay u dhisi lahayd Galmudug lagu mideysan yahay inkastoo beelaha qaar ee halkaasi dega ay diidan yihiin kuna eedeynayaan dowladda inay faragelin qaawan ay ku hayso maamulkaasi. dhinaca kalena Axmed Madoobe ayaa aqbalay go'aanada taliska Amisom kana laabtay mowqifkiisii hore. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ugu dambeyn aqbalay in doorashada lagu qabto xarunta qaramada midoobe ee ku taala magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kadib kulan gaar ah oo uu la qaatay taliyaha guud ee ciidamada Amisom. Axmed Madoobe ayaa sidoo kale ogolaaday in amniga doorashada lagu wareejiyo ciidamada booliiska Amisom oo kaashanaya kuwa Jubbaland sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ila lagu kalsoon yahay iyadoo haatan dhaqdhaqaaqi laga dareemayo magaalada Kismaayo. arrintan ayaa waxaa hore u soo jeediyay dowladda federaalka oo iyadu dalbatay in doorashada lagu qabto xarunta qaramada midoobe kadib cabasho ka timid musharaxiinta. sidoo kale qaar ka mid ah musharaxiinta oo la hadlay warbaahinta ayaa soo dhaweeyay tallaabada ay Amisom kula wareegayso amniga doorashada Jubbaland. doorashada ayaa la filayaa in la qabto isla bishan Agoosto iyadoo qabanqaabadii ugu dambeysay laga dareemayo magaalada dekedda leh ee Kismaayo. ugu dambeyntiina ciidamada dowladda federaalka oo garab ka helaya kuwa Mareykanka ayaa shabaabka la wareegay degmo muhiim ah. wararka ka imaanaya deegaanka Awdhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay goordhow si buuxda ula wareegeen degmadaasi. saraakiisha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa xaqiijiyay in ciidamada danab ay howlgalkaasi hogaaminayeen. taliyaha ciidanka lugta General Odawa Yusuf Raagi ayaa sheegay in ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee commandoska loo yaqaano ay al-shabaab ka saareen Awdhiigle. wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda ay howlgalkaasi ku wehelinayeen ciidamada
ciidamada Amisom iyo saraakiil Mareykan oo dhinaca tababarada ka taageera ciidamada dawladda. Awdhiigla waxa ay 70 kiiloomitir dhanka koonfur galbeed uga beegan tahay magaalada Muqdisho waxaana muddo dheer ka ariminaya Al-Shabaab. Awdhiigla ayaa dhowr jeer ay isbedeshay gacan ku haynteeda iyadoo ay Al-Shabaab maamulayeen degmadaasi 4 sano ee u dambeysay kadib howlgaladii sanadihii 2012 iyo 13 ciidamada xoogga dalka kula wareegeen inta badan gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa Al-Shabaab ka qabsaday deegaanada Sabiib iyo Caanoole oo ay qabsadeen 1 bishii Abriil. sidoo kale ciidamada dawladda ayaa deegaanka Bariire ka qabsaday Al-Shabaab 1 bishii May isla sanadkan. guud ahaan warkii aad kala socoteen kulanka wararka waa naga intaa. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar channelkan sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararka aynu halkan soo gelino. waana mahadsantihiin.